howlgal ay fuliyeen laamaha amniga degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay ku soo dileen dhowr dhagarqabe oo ka tirsan kooxaha qawaariijta kuwaas oo qaarkood meedkooda la keenay halkan oo ah goob fagaar oo ku yaala degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose bulsho aad u fara badan ayaa halkan isugu soo baxay si ay u arkaan dhagarqabahan ay ciidanku soo qaarijiyeen habeenkii xalay howlgal ay ka fuliyeen tuulooyin ku xiran degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ugu horreyn waxa goobta ka hadlay oo faahfaahin guud ka bixiyay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee degmada Marka Maxamed Sheekh Xasan ahna gudoomiye ku-xigeenka amniga howlgalka waxa wadajir u fuliyay taliska guuta 14 Oktoobar iyo ciidanka NISA maalmahanba waxaa jirta magaalada Marko in culeysyo badan ay soo saareen nimankan magaaladan rag baa joogo maamulka ka jiro shabaab hadii ay qabsato cid ku haysata ma leh laakiin magaalada ragaa joogo wax ma keenin karto hadii ay isku daydo inay keento sidaan oo kale waay midda kale waxaan rabaa maalin meelaha jaadka ay geliyeen dadka shacabka digniinaan ka siinay warbixintooda waa helnay maalinta dambe iko wada la qabtay macal dadkii la qabtay waa xiran yihiin dawladii waxaan ka rabnaa nimanka xiran iyo miinankoodii in xukun ay mariyaan hadii silay karaal noqdo anagu waa haynaa iko maxaabiis ah wixii dhinta waa dhinteen bakanna xalaal la qabto howlgalkaas lagu qabtay marka waxaan rabnaa in maadaama aatiin laamaha amniga ama dadka shacabka aan qaranin laga soo celi male shabaabna waa jirtaa shacabna waa jiraa muslim waa jiraa gaalna waa jiraa hadii aad qarsato ku dilayaan le aan qarnan ku kulma karnaa hadii kanoo kale dadka inas dhibaateey u soo baxay magaalada inuu qarxiyo asba inuu dad dilo soo baxna waa dileynaya aan qarnan ugu xisaab dhamaanteena marka halaga shakinin halaga labalabeenin qof walbo nuucan ah barta astaagin halagu dilo anaga go'aan qaadanay xalay waa kaas meedkiisa asiga iyo alaabtiisa meeshaas ku haynaa wixii noolne waa haynaa imiinooyinkooda 5 xabo miina haynaa kale ninkan waxaan ku haynaa 2 miino iyo meedkiisa haynaa dawladdu waxaan rabnaa in cadaalad laga helo ummadda marka cadaalad hesho ummadda gobolka cadaalad hesho xukunkiisa la mariyo wixii dhinta waa dhinteen wixii nolol hayna maxaabiis inaga la wareega rabnaa silay karaalna dhanka kale waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada oo aad u booriyay dadaalka ay sameeyeen laamaha amniga degmada Marka in laga baqin hadaa ka baqdid hadaa dhaaf adigu ku dilaa hadduu soo wax wada aragtid oo laamaha amniga soo sheegayso uu baxa meesha fadhidu uu keenaa meesha adigu ku qarxina qof uu dhaafa maxamed sheekh ma dhaafay adan ma ku dhaafa qof uu dhaafay male waxa rabnaa anaga magaaladan amnigeeda bad amni waa soo dheen laakiin alxamdulillah ma ku darno عارنا مانت الحمد لله أنا قدرنا عيد مدن محلها أو هيلون قربها أسقبسنا قفل بديان ككونول شعب هذا مامول هذا عسكري هذا سراكيل هذا إن قامها أسقبسنا على هالملا أو سود جسنا مدن أفري 8 أكتوبر عيد مدن نسا بوليس كمشان جو وحنك عصنا مدحضة هير فدرال هيل استدبو إن أول مرين تود إن للسيو لدي رجليو وحكلا اللي هي بوانا يسوقاتن واك كوانا كدقالموين معناها حروا عيد مدن نفط الدين وحليها معناها كوانا كدقالموين ولي ما أركن عمبول قال لي إنياني الاسكوكري ولي ما أركن وحروا تحذر سيدا لو سوبي واقعد جدينو معناها انتان ودان إن مسلم اللي ودو أتاني دي نيسنقون وحودا نيسنقون هل كان شيء كلي وعناه انتاس موبيلان معناها الاسكوكر ساري مركب حروا دي إلهي ويرادو وحكا عدسنا أناقن إلهي أقرب كاين هقلو dadaal inta aan dadaalayno oo ay laamaha amni ay dadaalayeen ee maamulka degmada uu dadaalayo dawladana waxa ka rabnaa state-ka iyo federaalkuba inay ayaga sidaas oo kale inay u dadaalaan inay wax keenaan wax kamid ah wax lagu xasuusto inay keenaan wax kamid ah dalacsiinka inay keenaan in la dadka la dhiirigeliyo ma ahan markii ugu horeysay oo ay ciidamadu soo bandhigaan dhagalqabayaal oo sidaan oo kale oo ay soo dilaan iyagoo markaas ku guda jira howlo lagu carqaladeynayo shacabka Soomaaliyeed أويس مؤمن حسن أويس أوكي وربعين تقارنك شبه الله